Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan salaamayaa dadka muslimiinta meel kastaba ay joogaan. Waxaan gaar ahaan u salaamayaa Soomaalida walaalahan nahay ee ku nool waddanka Somaliland. Maanta waxa weeyaan maalin waa bishii kowdii weeyaan Shacbaan. Bishan waa bil khayr badan. Waxa weeyaan bishii la bedelay qiblada qiblateyn masaajidka Soomaalida ku yaala masaajidka ku yaala saylac ku yaala ee labada qiblad leh qiblateyn Soomaha. waxa weeye waa maalintii la bedelay. waxaa loo jeesan jiray markii hore xagga iyo Muqdis Jerusalem ayaa loo jeesan jiray. marka Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa cirka eegi jiray. Ilaahay buu ka sugayay inuu Ilaahay soo dejiyo waxyi si uu qiblada uga bedelo Jerusalem u jeediyo Maka. marka maanta waxa weeyaan maalintii Ilaahay uu maqlay ee uu soo dejiyey in loo jeesto qiblada xagga Maka ee laga soo jeesto xagga Jerusalem. maalintana waa maalmihii loo diyaar garoobayay bisha khayrka badan ee Ramadaan. haddii Ilaahay ina gaarsiiyo quraanka aad akhridaan iyo salaada aad akhridaan waa isku mid, waxay leeyihiin inta aad Ramadaanta samaynaysid. walaalayaal waxaan halkan idinkala soo hadlayaa inaad ducada badsataan, quraanka badsataan, Ilaahay baridaan, Ilaahay inaga dulqaado waxa xumaanta inagu soo socda oo albaabadan wanaagsan inoo furo. xagga Ilaahay walaal u jeesta. waxaan doonayaa kale aan idin xasuusiyo oo farxad leh. dadkiina waa dad muslimiina ilaa iyo markii Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam Ilaahay ka dhigay nebiga. in yar kadib markiiba muslimiintiida waa dadkiina waxa weeyaan dadkii muslima waxaa markhaati ka ah masaajidka ku yaala saylac ee qiblateyniga ah. waxaynu u tukan jirnay markii hore xagga Jerusalem. marka waxa weeyaan waxay taas ku cadaynaysaa in aynu dadkii ugu horreeyey halka diintu ka soo gashay Soomaalida oo dhan inay yihiin waddanka Somaliland iyo saylac. wax lagu farxo weeyaan walaal. Ilaahay cibaadadiisa badiya. ilaahay raxmaan garsaaqa ayaa albaaba khayr inoo wada furi doona kulligeyn. waan salaamaya. waa maalin wanaagsan oo iidoo kale weeyaan. quraanka badiya, salaada badiya. wassalaamu calaykum.